shirka jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay inaan faahfaahin ka siino shilkii nasiib darrada ay maanta ka dhacay madaxtooyada nawaaxigeeda oo ay ku lug lahaayeen qaybo ka mid ah ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya dowladda federaalka ee Soomaaliya marka hore anigoo ku hadlaya magaca ciidamada xasilinta caasimadda iyo kan dowladda Soomaaliyeed waxaan tacsi u dirayaa intii ku dhimatay waxaan leenahay ehelkii intii ku dhimatay samir imaan Allah ka siiyo intii ku dhaawacantana ilaahay ha u beegadhayo ilaahay caafiyo waxaa shilku shil nasiib darra ma ahayn isku dhac warshaysan inkastoo la dhihi karo kii hore haddii uu isku dhac ahaa ka dambeeto maxaa sababay dowladda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego dadka Soomaaliyeed inaysan dhegeysan doonin dhacdada baaritaan dhab ay ku samayn doonto cid kasta oo qaladkeeda ku soo baxana tallaabo muuqata oo lagu qanco cadaalad waafaqsan laga qaadi doono muddooyinkii la soo dhaafay magaalada howlgallada ka socday runtiina horumar weyn ayaa laga gaaray waa lagu diirsaday nabad ayaa soo muuqatay shilalkii iyo dilalkii iyo weeraradii qorshaysnaa oo argagixisada iyo nabadgudka u qaadi jiray yani waa laga hortagay waa la xakameeyey dadweynaha Soomaaliyeedna oo magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda degan ilaa xad ku bilaabay howlahooda si caadi ah inuu qabsado asagoo ku kalsoon nabadgelyada iyo dowladda ay u sameynayso waxaan rabaa marka shilkaas inuusan wax niyad jaba shacabka u keenin horumarkii iyo howlihii la waday waa sii socon doonaan ciidamada howlahaas ku lug lana ma dhici doonto in ayaga la isku mashquuliyo marka cadowgu yuusan fariin qaldan inuu helo ma rabno haddii ilaahay yidhaahdana madaxda qaranka ugu sarreysana ayaga naftoodana arrinkaa way ka hadli doonaan guddi waxaa loo saari doonaa madax bannaan oo sidaba arrinka usoo baara oo arrin nasiib darro ah runtiina dadku waa bini aadam sidiisa waa dad qalad ka dhici u yahay marka arrin qalada laga soo qaado wax qorshe ah ma ahan waana shil dowladda dhexdeeda ah oo ciidamo isku mid oo aan la dhihi karin hadda sida loo fasirana nabad sugid iyo military aan la dhihi karin ciidamada xasilinta ka soo qaban booliiska iyo militariga nabad sugidda waa isku dhafan dhinaca kalena waxay ahaayeen ciidamada madaxtooyada aaggeeda ilaalinaya xoogaa dhaqdhaqaaq madaxda qaranka oo jiray iyo ciidankana howlgal jira si oo lama filaan isugu dhacay wixii kaloo soo raaceen waa nasiib darro waana la baari doonaa haddii la yidhaahdo waxaan rabaa in fursaddan uga faa'iidaysto waxaa jira dad mas-uuliyiin ah oo qaarkood dowladda ay ku jiraan oo dhararsanaya magaaladan dhiban ka dhaco oo maalin kastoo dhibdhic waa dhahaya maanta qarax ma dhicin maanta magaalada wax looguma dilin oo nimanka shaqadooda waxbaa ka soo baxaya oo walwal iyo deg deg u qaba in magaaladan dhibaato iyo shil iyo gumaad uu ka dhaco waxaan rabaa inaan xasuusiyo dadkaas haddii aadan khayr ku hadlaynin iska aamusa dad waxaa jira immunity ama xasaanad wax ku gabada oo u haysta xasaanadu inay wax kasta ka dabooleyso war waxaa jira xorriyad qolqolka waxyaabo aan lagu ogolayn oo kamid tahay kicinta dadweynaha oo ay kamid tahay wax u dhimidda danaha qaranka iyo nabadgelyada qaranka qof marka mas-uul ah oo maalin ilaahay keeno haddii 100 shay oo wanaaga la sameeyna aan marnaba ka hadlayn wax yar hadday dhacaan la soo boodaayo oo si xun u fasirayo horta arrinkaas waa nasiib darro waxaan qabaa marka xasaanadu micnaheedu ma ahan in xornimo taam ah lagu siinayo sida adigana in lagu waxad gudbin aysan suurtagal ahayn adigana la rabaa si mas-uuliyada ku jiraan aad dhaqantay dad waxaan dhahay arkaa mas-uuliyiina dalkan wareegto iyo shir jiraad maa lagu xukumaa haddaan mooshin maa lagu xukumi lahaa xukuumadda rid oo maalin ilaahay keena dowladda is haysato oo horumar la gaari waayo oo ummadda waxa la qabanaya ma waxa damacsan la hadli waayo masaasaa dalka lagu xukumaa waa nasiib darro marka qaarkood haddana waxay ku leeyihiin qorshe xumo amni magaaladan howlgalku wuxuu ka socday 3 bilood oo xiriir ciidamada howlgalka ka socda hal maalin shil ayaga la xiriir ma dhicin hal maalin sida ciidanku u tababaran yahay mas-uuliyad ku jirto oo u gudanaya howshiisa u xakamaysan yahay dadka wanaagga ula dhaqmaayo hal shil kama dhicin maanta wax yar dhaceen in lala soo boodboodo la buunbuunay oo maalin ilaahay keeno wanaag iyo horumarka la gaaray aan marnaba soo qaadan maalin ilaahay keeno ii sheegay wixii yaroo dhacana la buunbuunaayo oo ii sheegeen weliba dee ayadoo u muuqato in codka cadow lagu hadlayo horta waa nasiib darro marka dee mas-uuliyiinta Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay isxakameeyaan waxaa la rabaa in aysan bulshada dareen xun gelin waxaa la rabaa qaluubta iyo maskaxda dadweynaha inaysan sumaynin waxaa la rabaa inaysan ciladaynin howlgallada dowladda waaya si yaroo kooban haddii aad nagu sheegtay taliye qaabka wuxu dhaceen
iyo waxa ka dhashay oo ama khasaare ah ma xidhan yihiin qaabka labada shil dad faahfaahin ka bixisid si dadku ay u ogaadaan ay adiga kaaga maqlaan iyo cidda khusayso xaqiiqada dhabta ah ilaa horta baaritaan dhaba laga sameeyo cid hadda caddayn karta si wuxu dhaceen ma jirto waaye laakiin khasaaraha waxa waaye qof ka dhimatay shilkii hore hal qof aa ku dhintay kii dambe 3 qof ayaa ku dhimatay inta waxaan aaminsanahay kii hore shil wuxuu ahaa ay sheegeen oo iska dabiici ah waaye kii dambe ciidamada oo markaasuu madaxweynuhu dhaqdhaqaaqaya ciidamada madaxtooyada loo sheegay in la yiri ciidamada niisa shabaab isku soo ekeysiyey dhinacaas waa la been fariimay been fariintaas ayaa la sheegay in wuxuu ku dhaceen laakiin waa la baari doonaa laakiin ciidan la yiri ciidan dawladda oo ay sheegeen maxaan ku dhahaa dareeskood wax wataa idin soo wareeraya shilka sidaas oo horta u dhacay oo iska nasiib darro ay hadda si ayagu ay qorshaysteen uma dhicin dabcan waa la baari doonaa marka hadda waa ka xunnaa intii dhimatay runtii in hadee ayadoo intaas wanaag lagu soo joogay oo shil la-aan iyo qab iyo quclaan magaalada ahaaday in maanta hadda dadweynaha soomaaliyeed la tusiyo in dawladdii dadkii la rabay in ay sheegeen ayagu ay isla dhintaan oo iswalaabsadaan oo hal cadow lahay inay hadda isku dhintaan horta waa iska nasiib darro waaye laakiin shilalkan oo kale dadweynaha dawladaha horumaru ka dhaca iska nasiib darro waxaan ka baranayna waxaa kamid a kow horta inaan bilaabno inaan ka shaqeyno oo inaan walaalayno ciidamada oo aan loo arkin nabad sugid oo aan loo arkin booliis aan loo arkin military wax yaroo haddii oo madmadow uu jirana si dhaba inta faraha loola galo meesha looga saaro muhiim waaye waxaa kaloo rabaa askarta nafteeda dhaqan xumada baratay tallaab in laga qaado qof kasta wuxuu sameeya asaga dawladda dawladda wakiilka maaha wixii hadda loo garaabi karo waa la garan karaa laakiin waxaan la garaabi karin waxaan rabnaa inaan haddii la yidhahdo aan u dul qaadan doonin wixii hadda shilalkan ka dambeeya waa la baari doona ciddii qalad ku soo baxana waxaan rabaa inaan u sheego in aan loo horturi doonin haddii la yidhaahdo oo aysan dhici doonin nabadoonnimo in wax lagu dhameeyo haddii la yidhahdo tallaabaa laga qaadi doonaa dabcan dawladnimaduna hadday ku jirtaa in sharciga kala dambeynta la ilaaliyo discipline ama uu jiro nidaam uu jiro oo qofku inuu hoggaansan yahay waa muhiim oo adeegii la rabay in dadka ay sheegeen si wanaagsan ugu adeego inuu haddii xumaan iyaga isugu bedelo waa nasiib darro waxaan rabaa inaan haddana usii sheego howlgaladii socday intaas iyo in lamida ma sii hakin doonaan dadka aaminsan dawladdu inay isku dhacday shaqadiina hakatay waxaas waa been ma dhici doonaan qaladana fahamsantiin ummadda soomaalida waxaan rabaa in ciidanka howlgada ku jira howlgaladoodii haddii ilaah yidhahdo inay halkoodii kasii wataan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddiga amniga qarankuna fariintaa lamida ayay gudub doonaan haddii la yidhahdo marka waa ku dheeraada wasiir soo dhawo waa mahadsantahay wasiir cabdirashiid cabdullaahi maxamed ayaan siinaynaa oo ah wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalk ee soomaaliya midda xigta dadka raba inaan waxay sii qorshaysaanadaan oo sii socdaan waxaanu leenahay taas ma soconayso raggaan waa raggii hal dhuf isku wada jiray oo shalayna ma garanaysaa cadowga hal meel uga soo wada jiray berrina uga soo wada jeedsan doona waa dad ehel waa dad walaalaa dad ciidanka xoogga iyo maxaa la dhahay amniga guud ahaanba hadday nabadsuud ahaan hadday booliis yihiin intuba waa hal ciidan waa ciidanka soomaaliyeed oo amnigana ku howlan midda xigta waa ka tacsiinayaa raggii maanta ku geeriyooday eheladooda iyo si guud ahaan dalka soomaaliyeed iyo dowladdaba waa tacsiinaya ilaahay iyaguna ma garanaysaa akhradooda ha u waasiciyo raggii ka dhaawacmayna insha allah si degdeg ah ilaahay ha u bogsiyo dhaawacii ka soo gaaray marka fariintaydu waxay noqonaysaa kow taliyaasha ciidanka laga bilaabo saacaddan hawshaasu ma ahaan doonto mid lagu dad kale isku dabooli doonaan nin walba wanaag sameeya wanaagaasu waa shaksigaas iskale oo la yimid ee dalka soomaaliyeed ku caawiyey darihii loo madan qabtay ninka kale dembiga la yimaadana dembigiisa lagu qaadaya sida taliya u sheegay baaritaankii baa bilaabanaya guddi madax banaana loo saaray guddigaas ayaa soo saari doona dadka ka dambeeyey hawshaas shaqaaqadaas inay maanta dhacdo dadkaas yaqaas ku noqon doontaa in tallaabo waafi ah waafaqsan sharciga tusaale u noqon doonta wax badan oo lasoo dhaafay oo mar kastana si xal mastuura lagu dhamayn jiray aysan socon doonin tanaa laga dheehan doonaa hadduu ilaah yidhaahdo muhiimadduna waxaa waaye kuwa kale warxmatashiilka wata waxaan leenahay warxmatashiil meel gari maayo haddii wax aad taraysaan ama warxmatashiil wax uu tarayo inta kale ee xumaanta ummadda soomaaliyeed meel kasta ku beegsanaya dhibaataynaya ka sheega warxmatashiilka ama warka wanaagsan tashiil markaas ee ku aadan dhibka ay ummadda ku hayaan kana insha allah shilkii dhacay ummadda soomaaliya meel kastay joogaanba inaan ka bogsino
iyadoo la raacayo nidaamka, iyadoo la raacayo dastuur dalka u yaalla, iyadoo la raacayo hab waafaqsan garsoorka iyo insha allah ka shaafin doonaa si ay u helaan dadkii dhintayna magaranaysaa xukun cadaalada, kuwii dhibka geystayna loo mariyo xukun cadaalada. duulaan guddigaasaan ooga fadhinaa. marka fariinta iyadu waa caddahay. ciidan dambe oo loo dulqaadan doono ama looga ogolaan doono in shaqaaqada noocan ay ka qayb qaataan ma jiri doonto. laga bilaabo saacaddaana wax shaqaaqadaas oo qorshaysanna ma ahayn. wixii halka dambeeyana hadduu ilaa yidhaahdo go-aamo cad oo aad ka arki doontaan faldambiyeedkan maanta dhacay yaanu ku salayn doonaa tallaabooyinka xiga shaqaaqooyinka noocan markay dhacaan. aadaan u mahadsantihi. waayo ugu dambeyn wasiir waan ka hadalnay inay waxaan ahaayeen shil dhacay in sidaas lamida baaritaan loo diray laakiin haddana sida taliyuuba sheegay ciidamadii weli isku dhafan yihiin, shaqadiina weli way socotaa mana joogsanayso. marka si aysan usoo noqon ama looga gaashaanto in shilkan oo kale mar kale uu dhaco, maxaa service oo aad qaadeen oo matalan aad ka bedesheen qaabka ciidamadu u howlgalayeen, dareeska ay isku aqoonsanayaan, meelaha ay ka howlgalayaan, maxaa tallaabooyin degdeg ah oo looga gaashaamanayo inuu shil kaas oo kale ah nasiib darraa mar kale soo noqdo aad samayseen? arrintu shilka waa laba nooc. mid waa midka hadda maanta dhacay inuusan sii socon. qodobkaas waxaa looga gudbay checkpointadii iyo aagii hawshaas ka dhacday. raggii joogay dhammaan waa laga qaaday, rag cusub baa jooga si hawshu ay usii socoto hakadna aysan u gelin. tan kale guudna de waa midkii awalba soo socotay oo ciidamadu ay isku dhafraayeen, dareesoona oo la wada yaqaanay. hawshaas inkastoo waa kii taliyaha hogaami tilmaamay oo hakad geli mayso, sideeda u soconaysaa. raggii laamaha amniga ka shaqaynayna sidooday hawsha u wadan doonaan. marka labada arrimoodba qaabka loo xalinayo ama qaabka loo gudagalay sida loo xalin lahaa waa labadaas yaaba ayaa loo sameeyey. waaya dardaaran ay ka ahaa sii lahayd hadda ciidamada kala duwan ee amniga sugaya isku dhafka ah la xiriir habdhaqan mucayan oo ay tahay inay la yimaadiin haddii xaalad kritiga hoosatan oo kale keeni karta ama la isku dhaco keeni karta inay dhacdo. qaab nooceed maxaad kula dardaaranka loo dardaarmayno waxaa weeye hal cadow bay leeyihin. cadowgooda waa shabaab. ciidan kale cadow ku ah ma laha. labadaas ciidan baa hadday ahaan lahaayeen boliis ama nabadsugidda ama militariga waa hal ciidan oo ciidanka dowladda ah kuna hawlan amniga inay sugaan. marka ayagaasaa walaal isu ah, ayagaasaa ehel isu ah, ayagaasaa u baahan inay iskaashadaan oo cadowga iska kaashadaan. marka shil wuu dhici karaa, laakiin shilkaas in loo nisbeeyo laba farqi oo laamaha amniga ka tirsan maaha. marka taas waxaan leeyahay inay halkaas uga gudbaan. intii maanta dhexdooda soo martayna ay ka qoomameeyaan, mar dambena aysan dhicin shil noocaas oo kale hadduu yaraado. aad iyo aad u mahadsan tahay wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed ayuu ahaa, iyo sidoo kale taliya